dowladda cusub ee imaanayso arrinta kale oo muhiimka u ah inay wax ka qabtaan ay tahay waxa weeyaan arrintan waxbarashada sare ama tacliinta sare ee waddanka sidaan wada ogsoonahay sidii burburka waddanka u dhacay waxbarashadii sare iyo tii hoose waa baaba'day waxaa dib u bilaabay dad ganacsade oo private ah marka privatekii tiradii ka batay wixiina quality-gii tiradii baa luntay mar haddii dowlad aysan jirin iyo cid system iyo nidaam u samaysa marka dowladda cusub ee imaanaysa waxaan ka codsan lahaa una sheegi lahaa in ay xoog fara badan ay geliyaan iyo juhdi fara badan ay geliyaan sida ay u adkeyn lahaayeen tayeynta tacliinta sare ee dalkaas